garaadada dhulbahante ayaa ku kala qaybsamay maamulka curdunka ah ee waqooyi bari Soomaaliya garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaadada kale ee maamulkaasi ka soo jeeda ayaa markan waxa u dhaxeeya dagaal aad u xoogan oo bilowgii dhismaha maamulkaani ay ku kala qaybsameen cabdirasaaq khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada maamulka Somaliland ayaana arrintan cadeynaya wax midnimo bulsho ah in aysan ka jirin laascaanood maamulkan halkaas lagu dhisayna aan loo dhameyn cabdirasaaq khaliif ku darso waa musharax u taagan jagada madaxtinimo ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa uu sheegayaa hadii asiga loo dhiiba in uu mideynaya dadka kala qaybsamay ciidamada kala qaybsamay isimada kala qaybsamay ee markan ayagu waa u dhow in ay qoriga isu qaataan oo is dagaalaan waxaan kula wadaagayaa waraysi laga qaaday cabdirasaaq khaliif adiguse waxaan ka codsanayaa in aragtidaada qaybta hoose ee faallada aad nagula wadaagto ee ku aadan khilaafka xoogan ee soo kala dhaxgalay isimada SSC qaatuma oo xilligan qaadkoodba salaanta aysan iska qaadaynin ayagoo ku mideysnaa dagaalkii lala galay ciidamada Somaliland balse hadda ay u muuqdaan kuwa ku kala tagay maamulkan laga dhisay magaalada Laascaanood ayna ku mideysan yihiin maaqir iyo qaatuma magaciisana la yiraahdo maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya iyadoo maalinta sabtida ee soo aadan taariikhdu ay ku beegan tahay 30 Agoosto halkaas ay ka dhici doonto doorasho aad u adag oo musharaxiin dhowr ah ay ku tartamayaan mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya Xasan Sheekh Maxamuudna halkaas uu ku dhaxmari doono tartan aad u xoogan ayagoona kala taageeraya xubnaha halkaas ku tartamaya dawladda federaalka ayaa wadata Cabduqaadir Firdhiye halka ay musharaxiinta kalena ayagoo ay taageeray ka helayaan dhanka Farmaajo iyo Sheekh Shariif iyo mucaaradka kalaba waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood waxaana ku sii deynayaa waraysiga cabdirasaaq khaliif adigoo se muuqaalka sii share garay laagna saar saaxiibadana la wadaag hadii channelka subscribe uusan ku hayna subscribe soo dheh halkani cabdirasaaq khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada maamulka Somaliland ayaa waraysi bixiyay xog badan ayuuna ku sheegay oo ku saabsan dhismaha maamulkaasi kala qaybsanaanta u dhaxaysa isimadii maamulkaasi uu ahaa gundhiga ee ayagu soo dhisay midnimadii shacabka Laascaanood ee lagu la dagaalamay Somaliland ayuu sheegay xilligan in ay kala qaybsan tahay loona baahan yahay isbedel dadkaasi lagu mideynayo waa kan waraysigii soo dhameystiran ila daawo سعيد عبد الله الدني إمام الكيس وحيد إن كتر سنة يعني أنا تقول أبعد العدين سأدا وين يساند قاس waxaan u dhiibnay hogaamiye Firdhiye dad iyo deegaan midaysan baan u dhiibnay oo siyaasiyan u midaysan oo dhaqaale ahaan u midaysan oo u midaysan ciidan ahaan u midaysan oo qabiil ahaan u midaysan maanta miyuusan mudnayn qodobadaas uu sheeganaya in lagu tixgeliyo oo uu qabya tiro waxyaabihii uu asaga bilaabay waxa gaargacan kugu riixaya Saciid Dani iyo Cabdiraxmaan Cirro inta marka laga yimaadana abaal badan inaan u hayno iyo in aanu taladayada leeyahay waa laba kala gaar ah waxaad ka mid ahayd markaad Somaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd madaxda ugu sarreysay xisbiga wadani mudane cabdirasaaq khaliif axmed ku soo dhawo Somali Stream aad iyo aad mahadsantahay waa dhawaad waxaad isu taagtay xilka madaxweynaha waqooyi bari oo ah xubin cusub oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya markii aad ku soo noqotay magaalada Laascaanood si aad isugu sharaxday xilkan waxaad ka jeedisay garoonka khudbad aad ku sheegtay in aad ka shaqeyn doonto inaan wiil dambe deegaanka ka dhiman fasiraado kala duwan baa laga bixiyay muxuu ahaa hadalka biyo dhiciis bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam imaatinkaygi magaalada Laascaanood 29 bishii June markii aan waxaan ka jeediyay hadalkaas oo dhinacyo badan taabanayay waxaan kaga hadlay habdhaqanka aan doonayo in dawladda aan hogaaminayo ay u dhaqanto oo ay ula dhaqanto dawladda federaalka ay xiriirka ka dhaxayn doona iyo maamulada dariska ah sida Puntland iyo Somaliland waxaan kaloo ka hadlay xiriirka deegaanka aan leenahay dawladaha dariska ah sida dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya waxyaabaha aan ka hadlay waxa kamid ahayd colaadii la soo maray ee muddada socotay welina aloosan waxaan ka hadlay in maamulka Somaliland aanu diyaar u nahay hadii xaqooda laga helo inaan nabadkooda noolaano iyadoo wixii ka horeeyay gobol xil noqon lahaa gobol xarka noqon lahaa aan tilmaamay oo ah inaan noqono laba maamul oo daris ah oo barbaryaala oo qolada kale ay ixtiraamto arintaas oo ah deegaan markii hore dhibaato dhacday duulaan bay ahaayeen dadkana waa ka dagaalameen
wixii dhici lahaa baan dhacay oo dhibaato ka dhacay waxaan soo jeediyay haddii iyaga laga helayo inaanay iyagana dantooda ku jirin annagana aanay danteedu ku jirin in nin dambe iyo gabar dambe ay nagaga dhintaan waxaan danteedu ku jirin oo macno darro ah oo ah qoladayda haddana anagu duulaan qaadnana sabab aanu u qaadno marka laga reebo magaalada Ceerigaabo oo aan si gaar ah staatiskeeda uga hadlay iyagu haddii ay soo qaadaan dad iyo deegaan aanay lahayn bay ku soo wajahayeen wiilashooda iyo gabdhahooda dhimanayaan macna ay ku dhimanayaan oo cadi ma jiro marka waxay ahayd hadalka aan ka hadlay hadal ballaaran oo gun ballaaran oo ahayd mandaqadan sidee maxay u diyaartay sidee bay ula noolanaysaa bulshada kale principle waxaan aaminsanahay wax kasta oo nabad lagu helayo in nabad lagu doono haddii la waayana wixii laga fursan waayo la yaro cabdulqaadir axmed oo cali firdhiye oo hadda oo u dhammaaday 2 sano oo ku meel gaar ahayd oo ahaa hogaamiyaha SSC Khaatumo wuxuu sheeganayaa guulo ay ka mid tahay inuu dhammaystiray maamul goboleednimada oo ku meel gaarka oo ka saaray SSC wuxuu sheeganayaa inuu dawladda federaalka ah khatar u qaatay oo uu arinta gobolkan horgeeyay manaafacaad badanna ee gobolkan u keentay wuxuu sheeganayaa inuu horumariyay waxyaabihii asaasiga u ahaa dawlad dhiska SSC Khaatumo looga soo guuray oo Waqooyi Bari looga soo guuray miyuusan mudnayn qodobadaas uu sheeganayo in lagu tixgeliyo oo uu qabya tiro waxyaabihii uu asaga bilaabay ma kula tahay horta marka ugu horeysa hogaamiye firdhiye hogaamiye ku meel gaarka ah ee maamulka SSC Khaatumo bulshada dooratay wixii uu xaq u leeyahay ee uu qabtayna cid ka gaasiraysa ma jirto wuxuusan lahayna horaaban hadalka ugu sheegay in aan uu ka gaabiyay in loogu cudur daarayo laakiin waxaan qabaa waxay ahayd go'aan bulsho 6 February isimada iyo bulshada oo isu dhan ay go'aan ku qaateen inay yihiin maamul ka tirsan dawladda federaalka oo ku meel gaar ah inta kadibna 2 sano kadibna aanu qoray charter ama aanu qoray ahdigaas oo ah 2 sano kadib in maamul laga bixi doono ku meel gaarka dadkii galwadeenka ka ahaana aan anigu hormuud u ahaa go'aanka hormuud u ahaa marka waxay ahayd go'aan aan u qaadanay si collective ah fulinteeda iyo cidda fulinaysaana waxa weeye maahan qof kula ma aha mar gaari karo dawladda federaalka ah isla xilligaas waxay aqoonsatay oo endorse gareysay go'aankii ka soo baxay bulshada reer SSC waxayna ballan qaaday inay kula shaqeyn doonto barnaamijka noocaas oo kale waana uga mahadnaqaynaa madaxweynaha hadda jooga ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu in barnaamijkii ay ballan qaadeen ay ka dhabeeyeen laakiin ma jirto runtii cid gaar u sheegan karta libta marka koowaad marka labaad waxyaabaha maanta dalka muuqda waxaan u dhiibnay hogaamiye firdhiye dad iyo deegaan midaysan baan u dhiibnay oo siyaasiyan u midaysan oo dhaqaal ahaan u midaysan oo u midaysan ciidan ahaan u midaysan oo qabiil ahaan u midaysan maantana dhammaan intaasoo dhan waad ogtahay in isimadii iyo dhaqankooda uusan midaysnayn qabiil ahaanna loo midaysnayn oo qeylahaad soo baxaysa ee ka soo baxaysa darafyada waad maqlaysaa wax soo kordhay oo dhaqaale ah oo hadda aynu tilmaami karnaa ma jirto tusaale waxaa kaaga filan golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumaddu muddada 2 sanadooda baa waxaa la gaarsiin waayay in mushahar la siiyo ciidamadii oo difaaca ku jira waxaa la gaarsiin waayay inay mushahar joogto ay helaan waxaa la sameyn waayay maamul daadejin baa la sameyn kari waayay marka waxaa la odhan karaa midnimadii oo ahayd wixii asaasiga ahayd baa dhammaan balluntay oo maanta halka ay dadku kala joogaan oo wixii aanu helay ee ugu weynaa aanu ku dagaalgalayn midnimay ahayd 100% waxaa la odhan karaa midnimadaas waxyaabaha ugu daran ee sugaya qofka madaxweynaha ka noqon doona maamulkan iyadoo awalba gudaha culays badan oo ka dhaco dhibaato ay ka dhacdo oo kala shaki ka dhacay oo kala ka dhacay haddana waxa soo kordhay deegaan dhan reer maakhira soo kordhay isaga laftiisa u baahan xikmadiisa u baahan aqoontiisa iyo aragnimadiisa u baahan deganaansho iyo xikmad lagu maamulo marka waxaan isleeyahay xilligiisii maaha su-aasha kalen ku weydiinaya waxay tahay dadka deegaankan muddo dheer ayay waxay cabasho ka qabeen kamid ahaanshahooda Puntland iyo kamid ahaanshahooda Somaliland markastana waxay isu arkeen inay dabaq yani second class ama dabaqad labaad inay ka yihiin nolosha deegaanadaas maadaama hadda deegaankii tashaday sool iyo sanaagna ay wax isku darsadeen ismadii ugu waaweynaa reer sanaagna ay ka maqan yihiin soo uma eka wixii aad ka cabanayseen reer sool ahaan iyo cayn muddada aad ka cabanayseen inaad ku samaynaysaan maadaama ismadii waaweynaa ee deegaanka sanaag ay maqan yihiin run ahaantii arrintaas aad bay uga duwan tahay maxaan radaa arrinta hadda aad tilmaantay marka laga soo qaado dhinaca waqooyiga ma jirin marna tala midaysan oo ay dadka ku tageen ma aha waxaan maanta leeyahay anigoo xilka hayay Somaliland
maalintaan speakerka noqday 3 maalmood kadib baan sheegay dadka iyagu talada Somaliland inayan qayb ka ahayn oo aanay joogin dadkii Puntland aanay joogin laakiin arrinta Puntland total way ka duwaneed waxay ahayd arrin dadkan deegaankii qaab qabiil ay ku dhisteen 100% ay kamid ahaayeen oo isimadii dhaqankee joogay marka laga reebay hal garaan oo isaguna chief aqal u magacawday ay ka qayb galeen